waa war markii hore ka soo shaac baxay dhanka baraha xiriirka bulshada ee dhinaca internetka, laakiin markii dambe ay xaqiijiyeen jaraa'idiyada ugu waaweyn dunida ayaana ka waramaya qisada Amiira Haya bintu Al-Hussein, xaaska xaakimka Dubai Al-Sheikh Mohammed bin Rashid oo ay walaalo isku aabba ay yihiin boqorka Jordan Abdullah bin Al-Hussein. waxay ka baxsatay Dubai iyadoo ay la socdaan 2 caruur oo ay dhashay. Amiira Haya markii hore waxay u baxsatay dhanka dalka Jarmalka oo waxay garab ka heshay diblomaasi sare oo dalka Jarmalka u dhashay, halka ay hadda ku sugan tahay wadanka Ingiriiska oo ay degtay qasri qiimihiisa lagu qiyaasay 85 milyan oo ganiga sterlinka ah oo ay sanadkii hore iibsatay. Warbaahinta wadanka Ingiriiska ayaa sheegtay in Amiira Haya iyo saygeeda Mohammed bin Rashid uu mid walba qabsaday lawyer caan ah oo ku takhasusay arrimaha furiinka iyo kala tagga si ay u bilaabaan dagaalka quseeya dhanka qarashaadka furiinka oo ay wada galayaan. warbaahintu waxay inta raacinaysaa in Amiira Haya ay qabsatay lawyer caan ah oo la yiraahdo Albrona Shackleton oo ah lawyer si gaar ah ugu shaqeeya xubnaha boqortooyada. hadda ka hor waxay soo qabatay kiiska furiinka Amir Charles iyo Amira Diana, halka Sheikh Mohammed bin Rashid uu qabsaday lawyerka la yiraahdo Helen Ward oo ah lawyer kale oo gudaha wadanka Ingiriiska caan ka ah, iyadoo la filayo in liiska gal dacwadeedkan si rasmi ah loo dhageysan doono 30 bishan aynu hadda ku jirnay Luuliyo. warkan waxa uu warbaahinta baraha bulshada ee dhinaca internetka ku jiray muddo 10 cisho dhaafsiisan, laakiin warbaahinta ugu waaweyn dunida ma aanay baahin sababtoo ah ma aanay hayn macluumaad badan oo kaga filan sheekadan. sheekada baxsadka Amiira Haya waxayna soo xusuusinaysaa qisada kale ee Amiira Latifa oo ah gabar uu dhalay xaakimka Dubai oo uu xaas kale ka dhalay, taasoo isku dayday inay Imaaraadka ka baxsato iyadoo uu garab siinayo diblomaasi Faransiis ah, waxaana si dhuumasho ah ay ugu baxsatay dhanka badda. waxay ku sii jeeday wadanka Hindiya, laakiin ciidamada ammaanka ee wadanka Imaaraadka ayaa qabtay oo dib ugu soo celiyay Dubai, lamana oga ilaa iyo hadda xaaladeedu halka ay ku dambeysay. Amiira Haya waa aqoon-yahanad sare, waxay wax ku baratay gudaha wadanka Ingiriiska oo waxay ka qalin jabisay jaamacadda Oxford, waxayna ku fiican tahay fardafuulka oo ay sheegto inay ka heshay geesinimo iyo kalsooni. dagaalka ugu badan waxa uu ka dhici doonaa barbaarinta caruurta ay u dhashay xaakimka Dubai oo ah wiil iyo gabar ay da'doodu u dhaxayso 11 ilaa 9 sano jir.